sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii reer somalilan waxa u bariyey waasan oo ku suntan ereyadii allaha u naxariistay cali sugulle dun carbeed ee ahaa waabaa bariyey bilicsan maalin bukhran kii ka baydhee bahdii ka leexda boqonta gooya waa baaba'iisa qarannimada somalilan waxaa lagu hoggaamiyaa tala wadaag oo ka kooban xisbiya golayaal sharci dejineed garsoor xukuumad ku joogta tubta dimuqraadiyadda xukuumad waddanka nabadda iyo xoojinta midnimada somalilan iyo horumarinta maamul wanaagga xukuumadda dareena xilka hoggaaminta ee ugu sarreeya isugu wareejiya hab doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhif iyo naadir ah qaaradda afrika iyo adduunyada in badan oo ka mid ah dhammaanteen waxaanu ka midaysannahay dhismaha dalkeenna nabadda midnimada ilaalinta xorriyaddeenna waxa inoo udubdhexaada 18 May oo ah maalintaynu guusha gaadhnay eenu xorriyaddeenni la soo noqonnay mudanayaal iyo marweyn intaa kadib waxaan halkan ka odhan doonaa ereyo kooban walaalayaal dowladnimadu waa awood shacbigu ku aaminay fulinteeda xukuumadda si ay u horumariso adeegyada bulsho oo hufan shacbiga somalilan waxaa xamaaneeya oo uyr iyo caabuq ka ilaaliya bahda caafimaadka oo saq dhexe iyo subaxda u taagan daryeelka caafimaadka iyo muwaadinka inkasta oo sanadkii 2018 dakhliga xukuumaddu koobnaa maadaama dhibaatooyin badani jireen oofkii xooluhuba inaga xidhnaa haddana xukuumaddu waxay xoog saartay in wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadku waajibaadka culus ee hayaan ay u qabtaan qaranka oo wixii loo heli karaba aan waxba laga haqran waxaana kor loo qaaday adeega bulshada ee caafimaadka sanadkiina dhaafay 30% iyada oo la dhisay xarumo cusub la qalabeeyey la dayactiray qaab hore u jiray dhammaan gobollada oo dhanna la qalabeeyey isbitaaladooda waaweyn waxbarashada waxa koriya waa kuwa koriya ee barbaariya dhalinta bahda waxbarashada oo ka saarta ummaddeena mugniga iyo jahliga oo gaarsiisa iftiinka aqoonta iyo hiraadinta hibada fog iyo horumarinta dalkeena xukuumaddu waxay iska xil saartay horumarinta iyo dibudhiska dugsiyada kor u qaadidda qalabka waxbarashada tayeynta macallimada iyo wixii dhaqaalo loo helo oo qaranka uga go'a oo waxba laga hagranin waxaana loogu dadaalay in la kordhiyo tirada macallimiinta iyo bunadoodaba waxaa lagu guntaday dhexe hoose ee dhammaan dalka oo dhan la gaarsiiyo 7 buug oo manhajkooda ah oo ay dowladdu kharashkooda qaado kuwaasoo lagu qaybiyey 1,200,000 oo buug waxaa waxbarasho dibadeed loo qaaday in ka badan 400 arday waxaa kor loo qaaday reer guuraaga walaalayaal si adeega bulshada loogu dadaalo innaga oo duruufo adag ku jira oo dhaqaale oo xooluhu xidhan yihiin ictiraaf aan haysan aan adduunka la macaamilin hay'adiisa dhaqaalaha sida baanka adduunka iyo kuwa lamidka ah iyada oo maanta aanay cidina inoo sheegin in dayn ay nagu leedahay hadday baanka caalamka tahay hadday dowlad tahay toona haddana dadaal badan ayuu qarankani muujiyey inuu kor u qaado adeegyada bulshada waxaa dadaal badan loo galay si dadka ku raageen oo rabo ka yaraadeen loogu qodi lahaa ceelbiyood dowladdii xukuumadda korreysay ayaa qoday in ka badan 200 oo ceel sanadkii tegina waxaanu ku daray 7 ceel oo dheeraad ah waxaa xoog la saaray in caasimadda biyo loo helo oo ay biyuhu aad iyo aad ugu yaryihiin wax soo saarka biyaha geedeedla 20% sanadaha soo socdana waxaanu ku dadaalaynaa sanad soo socda in 40% la gaarsiiyo biyaha oo hadda weli mishiinadii soo gudbin lahaa ay ku jiraan hawlaha gabagabada qaybta ugu dambeysay walaalayaal qarankan
sideed sannadood aan cidina waxba ku darsan hadday dalalka jaararkeena yihiin hadday kuwa afrika yihiin aan qabo inay xuquuqdoodii ka deedifeeyeen isagoo isku tashaday waxa uu ka fikiray uu hilaadiyey uu iminka hirgeliyey in dhallinyaradiisa oo 70% uu rajadooda iyo mustaqbalkooda kor u qaado qaranka Soomaaliya waxa haydaa dhalinyaro wiilal iyo gabdho ah haybad iyo karti Ilaahay siiyey qarankan mustaqbalkiisa iyo karaamadiisu waa dhalinyarada oo cadawga ka daafaca xuduud dalkooda jecel naftooda huro oo arkayseen gabdhihii iyo wiilashii jaamacadaha ka baxay oo intay tuuto xidhaan maanta halkaa marayay iyagoo qarankooda dhisaya dhalinyarada qaranka ee berrito mustaqbal rajo iyo dowlad shaqo loo abuuraa waa mudnaanta koowaad ee xukuumadda waana waajib shacbiga oo dhan saaran barnaamijka shaqo qaran 30% loo qorsheeyay gabdhaha oo si gaar ah u tartama imtixaanada lagu galayo shaqada waxa sanadkan la gaarsiiyay oo dalka oo dhan in shaqaalaha dowladda laga soo qoro oo ay ku guuleysteen 500 oo dhalinyaro ah oo 130 waxaanu ka kan hogaamin doona inay aqoontooda iyo mustaqbalkooda iyo dhaqaalahoodaba dhismo ilaahay idankiina waa isku duubanaa waynu saarnaa dhibaatooyinka ku jira dhaqaalaha qaranka Soomaaliya qaadooyiga ka ilaaliya bahda wax soo saarka oo murug iyo sidii ay dadkooda baahida uga saari lahaayeen dhaqatada beeraleyda kalluumaysatada shaqadeyda qaranku waxa saldhig u ah dhaqaale u abuura dhaqaalaha oo dhinacyo badan gaarsiiya bahda ganacsiga iyo suuqa xorta ah free market qorshaha qaranka ee ay soo diyaariyeen wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo nolosha dalka waxay u sidaas wata dalka 5% waa beeraley 3% waa kalluumaysato waxay ku tiirsan yihiin adeega ganacsiga iyo warshadaha fudud dalkeena waxa lagu qiyaasaa maanta tiradiisa in 50% ay ku nool yihiin magaalada halka 50% ay joogaan miyiga tirada ay ahayd sanadkii waxay kordhaysaa 3.3 tirada guud ee Soomaaliya waxa weeye sida sanadkan joogo 3 milyan qulqulka reeruhu qulqulaya magaalooyinku sanad waa 5% daatada iyo tirada waxa aynu ku arkaynaa mustaqbalka 10 sano gaari doono 5 milyan ka badan in magaalooyinkana dadka badankiisu oo magaalooyinka soo degi doono taas waxay u baahan tahay in qorshe qaran laga fikiro 10 sano ka bacdi sida dalkeenu noqonayo iyo sida loogu sii diyaar garoobayo tirada soo socota isla markaa xukuumadda maanta jirta iyo qarankana waxa waajib ku ah oo lagu foogan yahay oo har iyo habeen lagu soo jeedaa sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha ummadeena ee maanta ta mustaqbalkan loo diyaar garoobi lahaa dhulka sanadkan dhulka laga beeri karo waa ay qiyaaseen dadka aqoonta beeraha wariga waxa weeye 350,000 oo hektar waxaynu sanadkii dhaweyto 3% inta waxaynu ku dadaalaynaa oo inuu xoog iyo caqli isu geynaynaa inaynu sanadka 2022 gaarsiino inaynu wax soo saarno dhulkeena beeraleyda ku wanaagsan inaynu nolosha xoolaha casriyeyno oo aynu soconayn noloshii hore ee reer guuraaga maadaama roobabka yaraadeen qaran ahaan waxa nagu waajiba inaynu xooggeena iyo xoolaheena isku geyno hab casri ah oo xoolaha loo dhaqo oo la dejiyo oo tayadooda wax soo saarka ay ka badnaato maanta iyo sidoo kale beeraha in la casriyeeyo
oo wax soo saarka hektarkii uu ka batay intuu maanta yahay taana qaranka xukuumadda iyo ganacsatada oo maanta cuduudda maaliyad dalka haysa iyo aqoonyahanku markaynu isugu tugno ilaahay idankii waynu ka mardhalin doonaa khayraadka dalka sahamiye dalkeennu inuu khayraad ceegaado iyo hadday tahay petrol iyo hadday tahay gaasba waxaynu u baahannahay inaynu la nimaado dadka lacagta iyo aqoonta la geliya wax soo saarka dalaha iyo petrolka oo ah dowladaha aqoonta iyo maalka nagu dhaama inaynu ku kasbanno inay dalkeenna maal geliyaan oo ay ka soo baxna khayraadka taasi inaga u xidhan tahay kuma xidhno dowlado kale iyo cid kale waxaa laynooga baahay dal ammaana isku kalsoon midaysan horumarkiisa raadinaya cidda u timaadaana ay ammaan ka helaan iyaga iyo xoolahooda kana heli karaan kala baxaan walaalayaal taasi waxay inooga digaysaa khilaafaadka dhexdeenna ah mucaaradada mararka qaarkood iskaga qaldanta qofkaa tartamaysaan iyo qaranka in la dumiyo mucaaradku waa loo baahan yahay waa miisaanka siyaasadda xisbiyada mucaaradkii waa inay dhaliilaan xukuumadda oo yidhaahdaan dagaal laakiin maaha mucaaradka inuu ahdo qaranka baa la dumiya haddaa kursiga waayo taasi waa xaaraan maamulka suuqa sarrifka lacagaha wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo baanka dhexe iyo suuqa sarrifka lacagaha oo iskaashanaya una adeegaya danta shacabka waxay awoodeen inay hoos u dhigaan sicir bararka 18 May 2018 sicir bararku wuxuu marayay 9%. 18 May 2019 maanta sicir bararku wuxuu hoos u dhacay oo la gaarsiiyay 7. taasi waxay sheegaysaa inuu shilinka Soomaaligu 4% kordhay waa jirtaa weli cabasho ka dadka waxiibsada ama consumerska iyo dayarta ah oo lagu doonayo haddii uu sicirkii shilinku hoos u dhacay sicir bararku maxaa ay u dhicdahay maciishadu waa la baarayaa waxaana u baahan tahay hubsiimo in dhanka walba laga eego waynu ognahay ganacsateeduna waa laf dhabarta umana quuri karna inay dadkooda ku xidhiiriyaan cuntada waxaase jirta maadaama aynaan lahayn ictiraaf caalamiya oo inaan elsi marin oonay baananka marin ganacsateedeennu mararka qaarkood waxay soo qaadaan bucshureed fara badan oo dhowr bilood iyo 6 bilood ay ku soo tala galaan oo qiimihii hore ay ku soo galaan taasoo haddii qiimaanka raacaan khasaare kula kulmayaan hase yeeshee waxa imika wadajir hawsha u wada inay xal helaan wasaaradda horumarinta maaliyadda baanka dhexe chamber of ganacsiga iyo ganacsatada oo dhan ilaahay idinkiina waxaan rajaynayaa in ay keenaan xal ummaddeenu ku farxdo oo ina wada anfaca horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaa la bilaabay dhismaha iyo ballaarinta dekadda berbera si ay u noqoto dekad weyn oo casri ah oo la fahmi karta dekedaha kale ee gobolka ku yaalla iyo kuwa caalamkaba wuxuu qorshuhu yahay in la casriyeeyo ballaarinta dekadda berbera qayb laxaad leh ka qaadan doonta dhalinyarada shaqogelinta dalka aynu jaarka nahay waxaa la bilaabay dhismaha jidka ganacsiga ah ee muhiimka ah ee berbera corridor oo halbowle u ah iskaashiga dhaqaalaha ee gobolka waxaan uga mahad celinaynaa dalka Somaliland shirkadda DB World oo ku soo dhiiratay inay maalka intaa la geliso dalka Jamhuuriyadda Somaliland oo aan la isqabsanayn oo xitaa aan aad iyo aad baan iyo DB World uga mahadnaqaynaa iyo dawladaha kale waxsaday oo kamid dalka UK oo qayb ka qaatay dhiska koridorka wadada berbera iyo cidda kale soo socota waxa kale oo mahadnaqaynaa dawladda ku taray oo ay ka mid tahay dawladda Jarmalka oo dhisa ama dayactiraysa qayb ka mid ah berbera corridor walaalayaal amniga iyo nabaddu waa nolosha lafdhabarteeda ciidamada kala duwan ee Somaliland waa tiirdhaxaadgeliyada iyo amniga dhismaha qarankeena urdinka oo la cadow badan xukuumaddu iyada oo taas ogsoon waxay ku tallaabsatay daryeelka qalabaynta iyo kor u qaadida mooralka ciidamada qaranka sida kor u qaadista aqoonta ciidamada ilaa heerarka ugu sarreeya ee caalamka dhammaystirka heerka xaqsiinta iyo howlgabka ciidamada kaas oo imka hore jira baarlamaanka ummadda Somaliland waxay og tahay
mudnaanta iyo xaqdhowrka ay leeyihiin ciidamada qaranka Soomaaliland waxaanay oo ku dheexan qaranka Soomaaliland wuxuu u horeeyaa dhismaha daryeelka xaqinta iyo karaamaynta ciidamada qalabka sida ee kala duwan dhammaan ogsoonahay in ciidamada qaranka Soomaaliland ee kala duwan ku dhintaan iyaga oo nabadeynta iyo iska ku dhex jira iyaga oo ka hortagaya dambiilayaasha khalgalnaya intaa waxa u dheer iyaga oo ka difaaca cadow si toos ah iyo si dadban u soo wareegaya dawlad iyo dadweynaba wadam qaranna ciidamada ku dhexdeena iyo ka hortagga dambiilayaasha dawlad iyo waxa inagu waajiba inaanu arrintan meel soo wajahno oo inu gacan bir kaga hortagnaa cadowga ciidamada Soomaaliland waxyeelaya sida aad la socotaan qaranka Soomaaliland wuxuu ku dhisan yahay doorashooyinka oo lagu qabto dibadda doorashooyinku waa dhibaato siyaasadeed oo wiiqi karta dimuqraadiyadda geedi socodka dimuqraadiyadda iyo midnimadeena waa in ay ka baxdo iyo goboleysiga oo dhisano qaran dimuqraadi ah oo isku maamula doorasho xalaala labada doorasho ku sidkan sanad dabayaaqadiisa qorshaysan xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu waxa ay kaga soo aaday miisaaniyad waxa kale oo ay aqbaleen jeedintii axsaabta qaranka ee mucaaradka ah ee ay ka dalbadeen inuu xisbiga kulmiye xukuumaddiisu ka tanaasulaan oo ka dhageystaan waxaanu aqbalnay in tirada komishanka la kordhiyo oo lagu daro labo mustaqbalka dhow haddii alla yidhaahdo waxaanu aqbalnay in komishanka cusub ee la dooranayo waqtigii la dooranayo lasoo hormariyo oo bisha August kowdeeda la bilaabo magacaabidooda waxaanu aqbalnay in komishanka cusub uu qabto doorashooyinka marka kii hore waqtigiisu dhammaado waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano oo weliba tanaasul badan u samayno wax kasta oo suurtagal ah oo ay xisbiyada mucaaradku tabanayaan oo doorashadu inoogu qabsoonto waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo bogaadinaynaa xisbiga UCID oo ahaa xisbigii noogu dooda adkaa ee waxaasoo dhan la ogolaysiiyey oo ka qayb qaadanaya maanta doorashada bisha November haddii alla yidhaahdo aad iyo aad baan ugu bogaadinaa geesinimadooda waxaan ugu baaqaynaa xisbiga wadani oo xisbi qaran oo sharaf iyo karaamo mudan isaga taageerayaashiisa walaalayaal inaad doorashada ka soo qayb gashaan waxa leeyahay aad naga codsatay waa dhameen gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga wadani oo si gaar ah u diidan doorashada waxaanu leenahay waxay dantu ku jirtaa in taageerayaashaadu ay ka soo qayb galaan xubnaha looga taliya qaranka ee doorashooyinka ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka waxaa kaloo ku dhiirinaynaa gudoomiyaha xisbiga sharafta mudane wadani gudoomiyahoodu inuu mar kale ka soo qayb galo maalinta sanad guurida 18 Soomaaliland ee qaranka arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda waxa tiirdhexaa u ah deris wanaag isxaqdhow iskaashi dhaqan dhaqaale iyo ilaalinta nabadkooda noloshaha gobolka iyo adduunkaba Soomaaliland waxay fulinaysaa cid kasta gacan iyo saaxiibtinimo dhammaan gobolka iyo waxaan siyaasadda ee ku jahaysan qaaradda Afrika waxaan aragnaa in baadgoobka ictiraafka Soomaaliland xoogiisa la saaro dalalka Afrika waayo wax la yidhaahdo oobi abdow waxaanu cadaynaynaa Afrika ku dhisan xuduudihii gumaysiga iyo sharciga u yaala ururka midowga Afrika shuruudihii looga baahnaa in uu dal jiri oo qaran ahaado xukuumaddu waxay qaadeen wax ku oola oo lagu dardargelinayo xiriirka beesha caalamka oo waxaad la socotaan wufuudda tirada badan ee ku soo qaaday taasi waxay marag u tahay
dardargelinta iyo xoojinta siyaasadda arrimaha wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa muuqata in caalamku badankiisu garwaaqsaday in la joogo waqtigii la kala dhaxaa Soomaaliland iyo Soomaaliya walaalayaal Soomaaliya oo laba dal ah oo Ingiriis ay kala gumaysan jireen ayay midoobeen 60kii 30 sano oo 10 sano ku jireen 20 sano ciil iyo isqabqabsi iyo cara ayay mideysnaayeen dhaxaway buntay 28 sano ayay kala maqan yihiin ragga maanta Muqdisho ka taliya ee farmaajiye khayraa waxaan u sheegaynaa bal caqliyadooda 28 sano ayay labada dal kala maqan yihiin dadka maanta nool labada dal ku qofka konton jirka ah ee Soomaaliland jooga wuxuu galaadaystay iyo Soomaaliland dagaal ku jirta oo iska xoreynaysa hadimadii iyo khasaarooyinka waxay ku soo ceshatay xoog iyo dhiig iyo waxay ninka maanta Muqdisho jooga jirkii ma qaadan Soomaaliland midnimada horena oo xusto carruur ku ahaa wuxuu ku galaadaystay Soomaaliland iyo Soomaaliya dagaalamaya iyagoo kala maqan dadka maanta Muqdisho ka taliya waxaan leenahay intii aad gaarsiiseen dhibaato Soomaaliland ka culus oo ka hawl badan oo naga khasaaro badan 28 aynu kala maqneen ee aad caalamka la haydeen ma xoroobi karaan ma ictiraafayno waa qayb naga mid ah ma caqlibaha maanta lafta kala bogsatay la iskuma kabo dadka 30 sano kala maqnaa waa ay cidla waan isku geenay qasabaan isku keenaya danta Soomaaliland iyo Afrika iyo geesku waxa ku jirta in labada dal ay noqdaan laba dal xor oo walaalo ah oo Soomaali laga yaabo 100 sano ka bacdi ay Soomaaliya soo hilowdo iyada oo mid walba sharafteeda iyo kalaamadeeda leh siyaasada Soomaaliya waxay door bidaysaa in mushkiladda ka dhaxaysa Soomaaliya 28 sano oo ay kala maqnaayeen iyo 10 sano oo dagaal oo dhiig badan ku daatay in maanta lagu dhameeyo xal nabada Soomaaliland waxay waaya arag u tahay colaadaha iyo dhibaatada colaadu leeyihiin sidaa darteed waxay kula talinaysaa ragga maanta Muqdisho ka taliya iyo kuwa lacag in sidii nabada mushkiladan labada loo kala guri lahaa ay u noqon lahaayeen laba dal xora walaala ah dadka isugu dhow wada baayac mushtariya wada noolaada isu xiisa inta colaad iyo fidmo laga dhaxwada labada dal sidaa darteed waxaan ku taaganaa wadada awaa in wada hadal lagu dhameeyo mushkilada taagan Soomaalilandna cidna magaalada ma aha xorriyadeeda kay ku soo gardaroodana gacan biray wax kaga qabanaysa iskaashiga dalka gobolka shacabka Soomaaliland waxay diyaar u yihiin inay door weyn ka qaataan isbeddelka dhaqan-dhaqaale ee ka socda geeska Afrika iyagoo ka mid ah dalka qaybtooda si xor iyo karaamo loo qaadanayo Soomaaliland ka socda geeska Afrika ee dimuqraadiyad leh ee horumar dhaqaale leh ee iskaashi leh cidna magan waxay ka soo qaybeysaa iyadoo dal xor ah oo Soomaaliland ay dhaqdo ninka taayda kalaliya ee Soomaaliland arki waaya ka uu yahayba horumaro oo gaaro laanteed gobol horumar maayo Soomaaliland waa qaran madax bannaan xaqiiqo jirta geeska Afrika waa qaran ku leh qaybtiisa iyo miisaankiisa dhammaan go'aamada isbeddelka ka socda gobolka geeska Afrika dhawaan waxaynu maqalay in la samaynayo ciidamo nabadgelyada badda cas waxaan la yaabanahay ragga istaraatiijiska ah ee fikradda leh ee ama ciidan ama siyaasiyiin ee gobolka ka tirsan ee doonaya badda cas nabadgelyadeeda xoojiyaan ama ay kaashadaan ee Soomaaliland oo leh inta ugu badan dalalka Afrika marka laga reebo meelaha yaryar qaarkood dalka ugu badan ee badda cas leh xeebta ugu faraha badan 850 kiiloomitir oo xeebta badda cas Soomaaliland baa leh Soomaaliland marka laga tixgelin waayo ciidamada badda cas xagee baa loo wadaa miyaa laga maarmi karaa inta mise Soomaaliland kaga qaadsa xuquuqdeeda dalkeeda oo talaysa
وأهل لا يابله وحنلاه إلا أبو ريو إسكاشي بدع عس كوسا ميسن سوما والله إلى أن عذر بنا بديك رشقينه أخبار يسمى إنه إلى أن مضى دقيقة بدع عس وحيد قريه لقى قبرايه ولا ليال وحب صوب القبيلية شعبي حريق إيه سومالا وحارقوا باقيا إن أتكيا نبت قلية دودة مدن مدودة قرن مدودة إسلام مركانا وإن أي هلاديان هلاديان مستقبل إفاية وكونا سيد ما أنت تشوفنه عالم كوابا نبت قلية كل أغمى شاكين درسونا جيسنا كوابا عادة وغينا نرجع عم بلا أنسكي قبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته